qalbiga ayaa laga dhaawacday anigoo ku jecel ayaad iclaysay waad iclaysay mana kaa filaynin murug fara badan ayaan dareemay maqnaashiyahaaga aragtidaada xiisatay xumaanta aad dhiigaysatay darteed ayaa qalbigayga alu dhaawacday oo aan ana kaaga fogaaday xiriirkeennana ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan wanaagsan guys, soo dhawaad gudahantiin dunida meel kastoo aad ka joogtaan. qofkii la hadlaya waa Camaar Idris. youtube-ka daawanaysaa waa Camaar Films and Vlogs. fadlan haddaa ku cusub tihiin ay tahay markii ugu horeysay ee daawataan muuqaalkan ama videogan, like, share, subscribe, share, comment intuba waa xaggiina. So guys, maanta waxaan idiin hayaa qiso ku dhacday qof maxay ahayd asxaabta ka mid ah. waa qiso jacayl qisadan waxay ku dhacday qof asxaabta ka mid ah, libana asxaabtayda aniga, yani asxaabta aad igu taqaanaan idinku ama tiimka niraahday. qisadan waa qiso dhab ah, waxaanay ku dhacday waqti aan fogeyn taariikhda iyo ma jecel inaan sheego qofka magaciisana, laakiin qisada inaan qofkaas kasoo tagay ayaan jeclaystay oo maxayday aan la wadaaga asxaabta, maadaama ay tahay qiso ay u baahan yihiin dadku inay maxayday dee loo soo gudbiyo. qisada waxay ku dhacday waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a qaabka ay usoo baxday ama aan ku maqlay qofkaas in aan maxayday qisada kasoo qaado ee qasab u noqotay. waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay dhacday waqtigii ayay gaadhay qofkaas ay isbarteen. kadib maalinkaas qofkaas joogiisa ka dareemay maxaa qaldan maxaa jira waan wareystay. maanta waxaan jecelahay qof kasta oo maxayday naxariis badan ama qalbigiisa wax ku jiraan in aan maxayday kasoo saaro oo aan la wadaago dadka, macnihii isaga qofkaas murugtiisa inaan la qaybsano waan jecelahay. sababtoo waxay jirta qofku wuxuu dareemayaa xanuun, wuxuu dareemayaa waxyaabo kala fara badan. qofkaas wuxuu u baahan yahay qof uu ku ilaabo waxaas ama uu u sheegto hadalkaas. lacala qofkaas haddii hore qof la wadaago oo u sheegto, qofkaas qalbigiisu wuu qaboobaya, wax walba oo dhib u haystayna u yar ilaabaya. laakiin se xanuunkaas hadduu keligiis ku ekaado, qofkaas dhib ayuu keeni karaa, xanuuno fara badan ayuu keeni karaa. maxayday inta aad maxayday isku dayi kartaan qofka inaad xanuunkaas la wadaagtaan oo maxayday aad dhaafisaan, isku daya insha allahu tacaala. aad iyo aad baan markaa u jeclay in la wadaago. qisada waxay ku bilaabaysaa si marka hore wiilka iyo gabadha intaysan isbaran, wiilku wuxuu ku noolaa gabadha wiilkooda, macnii wiilka ay walaalahiin ayuu asxaab la ahaa. So guys, waxaa jirta qisooyinkeeda macnii macaankeeda inaan hadalka isku dardariyo iyo xanuunkeeda u qaata. wiilka gabadha walaasheed, oh my god, gabadha walaalkeed oo ah wiilka la dhashay gabadha ay wiilkan asxaab ahaayeen, ay gabadha isjeclaan doonaan. soo wuxuu ku noolaa gurigooda, labada wiil asxaab bay ahaayeen, gabadhuna wiilka ay jeclaan doontaa. labadoodan qiso ayaa dhex mari doonta. wiilka iyo gabadhu marka ay is-yaqaaneen muddo aad fara badan, wiilkiina guriga ku noolaa. laga yaaba asxaab waxaa jirta deris ah oo haddana gurigooda nool, haddii ay cunto noqoto iyo haddii ay iskuulka noqoto. inteena badan soomaalida aad bay ugu yartay baa laga yaabaa, oo wiilku is dhahaa waa ceeb xaafadiina haddaad ka maqnaato xaafad kala degto. laakiin waxaa jirta dadyow caalamka marka la eego walaalo noqda si ay u wada joogaan. waayahay wiilkii markuu in muddo ku noolaa xaafadii, wax dhacday wiilkii gabadhii waa isjeclaa. wuxuu ma isjeclaadaan jacaylkii marka ay isjeclaadaan muddo fara badan soo isjecleen. waxaa dhacday waqtiyada ka mid ah xataa heer waxay jira gabadha waxaan gaadhay wallaahi cuntadiisa iska dhaafe waqtiga uu guriga soo gelaya ayay xisaabsan tahay iyo waqtiga uu guriga ka baxay. macnihii socodkiisa markaan garta waa hebel. qofka qaar waxaa jira xaafadda markuu soo galo qaab buu qaraacda, anigaas qaab baan qaraaca, qaw 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 qaw. waa la dareemaa qofkaas inuu anig yahay. xilliyo gaaraan leeyahay aan guriga tagaa. markaa xilliyadiisii bay qaybtay, mar walba waxay jeclay inay albaabka ka furto oo maxayday ay albaabka. waxaa ii sheegtay intaanay jacaylka maxayday la wadaagin qofka hor jeclaatay in iyada ahayd oo maxayday wiilka ay kaga horeysay jacaylka. haddaba qisadaas jacayl in badan markay soo socotay waxaa dhex mari doonta khiyaano yar oo kale. wiilku
ay walaalahiin gabadhu iskugu ogeyn labadooda, balse labadooda si khaasa u wada sheekaysanaya oo isjeclaa xaafadana ay iskugu ogeyn dad walaalo ah oo guriga ku wada nool ba loo haystay. alxaaskii wax badan markuu socdo wiilkii wuxuu keenay inuu gabadhii ka gaagaabsado. gabadhiina waxay tiri xanuunkayga de haddii aan dadka tuso maxay ahaday dee walaaladayba ay dareemaya oo waalidkayba ay dareemaya jacaylkana qof gurigayga nool macquul meel ah inaan maxay ahaday dee aan la wadaago ama layga dareemo jacayl. waxaan is adkeeyay waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah wiilkii waxa uu u baxay safar ayaan geliya ayuu dhahay waxaan raaci doona walaalkay waxaan u baxayay meel magaalada ka baxsan oo magaalo kale ah. magaaladaas kale haddaba wiilkaas wuxuu ka doonayay wuxuu u tegayay safarkaas ninkan saaxiibkii ah iyo isagaa israacayay. sababta uu u tegayna waxay ahayd halkaas waxa ku sugaysay gabadh ay wiilka wada sheekaystaan, waa gabadh labaad ah ay wiilka wada sheekaystaan oo wiilka ay asxaabta hayiin ee macnihi gabadha walaalahayiinna isagana saaxiibadiiba sugaysa oo xafladba loogu diyaarinaya halkaasi kadisii sabrayso. kadib wuxuu ku dhahay markuu bixi doono waxaan u tegaya dadaan asxaabna oo halkaasna iga horeeya dee sidaa iga warhay. okay intay safarkooda haayeen miyay waaceen waxay ku tiri maadaamaad walaalka wada socotaan inta badan anuma ku soo wacayo adiga isoo wac. so guys waa u jeediin dee qof walaalkaa la socda ma wici karti hadii wacdo shaki baa imaanaya meesha. markaa wiilkii alxaasil markuu meeshii tegay xafladihii wixii ay dhaceen kadib wiilku wax walba oo qarsoon markay soo baxaan khiyaanadu si kasta oo qarsanaad markay soo baxaan gabadhii markay soo noqdeen ay ku tiri waa boora maxaa ka doontay walaasha. wiilkii wuxuu ku jawaabay hebel saaxiibadii oo ah jacaylkiisa ayaa xaflad qabanaysa. gabadhii maxay dareemi kartaa qofka ka nixinaya ee hadalka u sheegaya oo walaalkeed qof kale maaha qofka ku leh jacaylkiisii ayuu u tegay oo walaalkeed. gabadhii xanuunka way dareentay laakiinse walaalkeed kama uusan dareemin oo isagu waa warmooge macnii wuxuu ogyahay ma jirto isagu xaqiiqadii inuu sheegay. gabadhii markay dareentay in badan sigsaaka oo wiilkii ka gaagaabsanayo iyo arrinkaas oo dhacay waxay ku lifaatay ama ay isku dhufatay macnihii isbarbardhig bay samaysay inta uu la hadlo iyo inta uu ka mashquulsan yahay. inta uu ka mashquulsan yahay ayaa badnaatay khiyaanadii sidaas ayay kusoo ifbaxday. saasna wiilkii iyo gabadhii bay isku daayeen. kadib waxaa dhacday gabadhii waxay tiri maalin maalmaha waxaan jeclaystay inaan qof la wadaago. qofka labaad in la wadaagtay ayaa arkasana waxay la wadaagtay aabaheed oo ah maxay saaxiibkeeda koowaad. saaxiibkeeda koowaad ayuu ahaa waxay tilmaan maalmaha kamida ah meel magaalada ku baxsan ayuu joogay. bacdeen waxaan sameeyey in aan maxay safar u baxo. maalinka safarka sii ah waxay tiri wallahi bilaahi tallaahi ma garanay goor aan meesha tegay iyo goor aan baska raacay. miir waxay u dambeysay markaan baska soo baxdo goor aan ka dadegan aan u tegay ma xasuusto ayay tiri. كل قصة ليس عليه تقولوا ذات حملك يا ابنك وكل قصة واما عفوا so guys waxaan oran karnaa inta badan wiilasha iyo gabdhaha keeba khiyaano badan wiilasha ayaa khiyaano badan mise gabdhaha. so guys afartayda farood masina kaas waa wiil kaas waa gabadh kaas waa wiil kaas waa gabadh kaa gaaban waa daacadii khiyaanadu way dheeraatay mise daacadda dheerisina ma daacadda dheerisina kaas waa khiyaano waa wiil baa nidhi waa gabadh waa wiil waa gabadh kama wiilka khiyaano badan wana gabdhaha ka adduunku sidaa aynoo sinayn bay dadku u sinayn waxay leeyahay qisooyinka jacayl la wadaagtaan si aan la soo wadaago waxaan idinka codsanayaa inaad Instagram-ka igu soo dirtaan ood ka heliysaan description-ka hoose halkaas igu soo diraysaan wixii qisadan waxa ku dhacday qof tiimka ka mid ah oo asxaabta igu dhow ka mid ah waxaan leeyahay qisadaas dee rumaantii qofkaasi intii muhiimka ahayd ee naxalkaad baa idiin soo qaatay waxyaabo kala fara badan oo secret ama private ah ayaa jira qofkaasi iga sheekeeyay balse uu doonayay inuu xanuunka igu ilaawo uu laakiin yidhi maxay intaas oo bandhigay intana muuqaalka waan tusayaa haddii uu ilaahay soo dhigay haddii kale billahi alxamdu aad iyo aad baan idin sameynaya asxaabta waxaan leeyahay ma jecel muuqaalka dheero inta kulmina muuqaalka waxay ka intiya sidaas iyo nabadgelyo.